madaxweynaha dowladda deegaanka Hareerida Ordiina Badri ayaa maanta qabtay barnaamij lagu dayactirayo dhismayaasha qadiimiga ah ee ku yaala magaalada Harar ee loo yaqaan Yagool. madaxweynaha ayaa gaaray dhisme ka mid ah dhismayaashaasi qadiimiga ah oo sida la sheegay jiray in ka badan 900 oo sannadood. madaxweynaha ayaa gacanta saaray dhismahaasi oo la dayactirayo, sidoo kalena waxa uu halkaasi ka jeediyay khudbad dheer, waxaana yidhi የጀጎል ባህላዊ ማዕከል አንዱ ሆነው ነው። halkani waa dhismaha taariikhiga ah ee hidaha iyo dhaqanka ee Jogor ee magaalada Harar. waxa aan maanta ka bilownay barnaamijka dayactirka guryaha ee sanadkan 2014 waa tirsi taariikheedka dalka. dhismayaasha duugoobay ee ku yaala magaalada Harar ee loo yaqaan Yagoor, kaasi oo xukuumadda iyo shacabka deegaanka Hareeridu iyagoo oo isku duuban ay iska kaashanayaan sidii ay u dayactiri lahaayeen. dadaalkaasi waa mid aanu sii wadi doono. qorshahani waxa uu yahay mid aanu ku dayactirayno dhismayaasha guryaha raadadka taariikhiga ah ee magaalada Harar ee ay ku nool yihiin dadka danyarta ah. geesta kale waxaa xarunta madaxtooyada dowladda deegaanka Hareerida ka qabsoontay dooda muhiimadeedu ahayd sidii heer caalami looga diiwaan gelin lahaa xafladda ama ciidda shuwaalka oo u gaar ah dadka Hareerida oo iyagu ay qabsadaan. xafladani waxaa ka soo qayb galaya hay-ado caalami ah, aqoon-yahano, qaybaha kala duwan ee bulshaweynta Hareerida iyo marti sharaf kale. ugu dambeyn waxaa faahfaahin laga siiyay kulankaasi ama doodaasi ku-xigeenka xafiiska hidaha dhaqanka iyo dalxiiska dowladda deegaanka Hareerida Cabdijibaar Ismaaciil, waxaana yidhi waxaan ahay ku-xigeenka dhaqanka iyo hidaha iyo dalxiiska. xafladda meesha ka socoto shawaal ciidka iyo dadka qoomiyadaha Harariga iyo xisbiga nawaaxigan ku nool in dhaqankoodii la diiwaan geliyo. munaasabaddu maanta waxaasay ahayd dhaqan ahaan mal iyaga kaliya qusaysa khaas ahay, laakiinse dadkii kalena waa la dabaaldegayaan. ila waa isu marti dad wada degan oo wada dhaqan ah oo wada wax walba wada haysta, maadaama ay yihiin sidaa daraaddeed ama Oromo ha noqoto ama Amxaar ha noqoto ama Soomaali ha noqoto ama qoomiyadaha kale ha noqoto, marti ahaan bay u imaanayaan. magaalada waxa wada degan qoomiyado fara badan baa degan. waxaad u qaadan kartaa Itoobiyadii yareyd baad u qaadan kartaa. marka sidaa daraaddeed dadkaas wax walbayba wada wadaagaan, laakiin khaas ahaan waxay u khaseeyaan dadka Hareerida kaliya. xafladii habeenkii inta qabsoontay oo kale xafladaasi maxay kaga duwaneed kuwii awal qabsoomi jiray? muhiimadda guud ee ay u leedahay dadka Hareerida maxay tahay maadaama dadka la isku dhisayo xafladda habeenkii dhaweyd oo la qabanayay waxay ku xafladihii ka horreeyay ka duwan tahay. awal iyaga kaliya qaban jiray xafladdaas, xaflad noocaasa, laakiinse maanta waxay noqotay dadka bariga Itoobiya ku nool ama Soomaaliya ha noqoto ama Oromo ha noqoto, kuween wada darisnahay, kuwaasaan u wada yeeray. iyagoo dhan baan invitation siinay oo aan u yeeray, maadaama maanta la rabay in dhaqanka la diiwaan geliyo. munaasabad saas ay ahayd. marka awal dadka magaalada ku nool iyo baadiyaha nawaaxiga magaalada ku wada nool iyo qoomiyadaha kala duwan, marka sidaa daraaddeed intaan isu wada yeeray ayaan xaflad ballaaran awal ummadda community kaliya xafladdaas qaban jiray. maanta laba jibaar bay noqotay. hataa madaxweynihii isaga iyo guddi la socday iyo dad fara badan, sidaa daraaddeed baa loo diyaariyey in la diiwaan geliyaa la rabay. munaasabaddu saasay ahayd. cabdixamiid ow maxamed, wararka telefishinka Gobonimo TV, magaalada Harar ee xarunta dowladda deegaanka Hareerida.